السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا عن جعلها ميل والبواد عالمك كجوكتان هدي أنا عصب طايف فضلا سبسكرايب نورد السي أن مر ولي بقول الصعود برنامج كذا حساب أنا هلكن نكوسو قبيو هدا هورا نوغو حرينا آديات كاغا مهد علينا waxaan waa inaan wax yar istu taago khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinacyo badan taabanaysay. madaxweynuhu wuxuu la hadlay ugu horeyn dadka ku shaqeysto bajaajleyda oo maalmahan dambe cabasho xoogan u soo gudbinaya dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynuhu wuxuu sheegay in canshuuraha amba bileedka bajaajleyda lacaga lagu kordhiyay ay tahay wax kama jiraan ayna abaabulayaan dad dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya caqabad ku ah. madaxweynuhu si cad u sheegay in qalalaadka jiro la sixi doono dhalinyarada Soomaaliyeedna ay xaq u leeyihiin inay shaqeystaan kuna shaqeystaan si nabad ah dadka waxaas wadana laga hortagi doono. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay ganacsatada ka cabanayso in la kordhiyo canshuuraha. madaxweynuhu wuxuu sheegay in aan wax canshuura la kordhin laakiin la keenay system meeshii marka hore dad dalaaliin ah ay lacag ka qaadi jireen farsamooyin badan oo jiray waxaasoo dhan waxaa loo guura system hadda wixii ka dambeeyo ganacsatada systemkaas ay canshuurta ku bixi doonaan wax maasuqa ma jiri doonto sida madaxweynuhu warkiisu ku sheegay canshuur la kordhiyana ma jirto. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday arrinta Itoobiya wuxuu sheegay madaxweynuhu inay ku jirto dadaal ay ku heli lahayd dekad laakiin dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inaan marnaba la siinin taaka dhulka Soomaaliya ka mid ah. madaxweynuhu wuxuu aad ugu adkaystay in arrintaas si biyo ka dhibcaan ah loogu soo wada horjeedo. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu u dambeyn ka hadlay doorashooyinka iyo isbeddelka lagu sameynayo dastuurka taasna wuxuu sheegay in qof kasta oo musharax ah qodobka ugu horeeyo uu doonayo inuu dastuurka wax ka bedelo loona gudbo doorasho qof iyo cod ah. sidoo kale madaxweynuhu ugu dambeyn wuxuu sheegay in qawaarijta dalka laga saari doono dagaaladii lagula jiro qawaarijtana la sii laba jibaari doono maalmaha soo socdo taasna ay ka go'an tahay dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynuhu warkiisu waa caday maantay bal adiga daawanayo maxaa kaaga baxay khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud qaybta commentiga nagula wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.